laba laba ku daro marka libin gaarisno haddaan labtaba la kaco xaqayga kuwii lo samayo antayda qabaalingaxano manito arabteen هذا جدكيغا ليحيان حنكيغا لاليان وحي هنتيان لها هذا واللوغيا مكولاعي افتيمو لبتادها للإرهادو جدكيغا ليحيان حنكيغا لاليان وحي هنتيان لها هذا واللوغيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قرب جوكتا سوماليدا إثيوبيا كنا دالكا أستراليا هي كلان ku yeeshay magaalada Melbourne kulankaas oo lagaga hadlayay dhibaatooyinka xasuuqa meedada dulmiga iyo xasuuqa ka socda gobolka City iyo magaalada Dirodhabe iyo guud ahaan kilka Soomaalida kulankaas oo magaranaysa laga hadlayo dhibaatooyinkaas ka soo taabanay isagoo kulankaas oo isku jiray cambaarayn iyo eed loo jeedinayo dawladda dhexe iyo takilkaba hadaladoodiina waxay u dhaceen sida tan waxa isku yimiday dhalintii barbaartii City amba anako Australia ku nool marka waxa jooga sheekhay weynaa Xuseen Waabari isaga aayad Quraan loogu furay intaan hadalka bilaabay والسلام عليكم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خيارتا قيمة بدنا ماشي اسكوي مطي الله سبحانه وتعالى اسكويمت كيغان انه كدليل قادرين قرانك الهي لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى وحيريسكو امد لسكويما هذا خيركم اجرو الى صدح الرمود مويان صدح الرمود بانان مانتا ماشي سوغوي مني dhibaatooyinka ka jirta ee ka dhacaya gobolkayagii dhibaatadan soo jiitantay in aan ka muujino ihtijaaj ama waxa la nagu sameeynaayo gardarrada in aan ka muujino inaan diidanahay khayr wuxuu ku jira isku imad in wanaag la isu sheegayo in islaax la sameeynaayo dadka dhexdiisa iyo in macruuf la isfarayo macruuf aan umada farayna marka farayna waxa weeyaan umadayadaasi ilaahay meesha dajiyay ee lagu maadayo in aan macruuf ka muujino wax wanaag ku jiro nabadu waa qaali nabadu waa caano lama waxa weeyaan waa caano weeyaan noloshu waxay ku socotaa nabadgelyo iyo wada noolaansho ay ku socotaa. إلهي وحده سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هو إسلامه يكون إسلام هينبا انت با قمات كلا نقوضو لولك عن دقنا هاي سيدا قردر رضا لوغو مارت وريجيا ما لوغو لوغي لولك عن دادك عن الحق ولهين إن lagu gumaado dadka oo ay ku dhintaan dad aan maaragtaan inay ku dhintaan xaq ahayn way waxa la dagaalamay hadii diin loo dagaalamay ma hadii wanaag loo dagaalamay hadii wax loo dagaalamay ninka cadow kugu soo wareeray gurigaaga xaq baad u leedahay iska difaacad waxaan ka muujinaynaa arinta iyada iyo walaalahay ay maaragtay meesha ay isugu imanay maanta
ay ka hadli doonaan godobta iyo dhibaatada meesha ka socota caasimadeedii magaaladeedii Diradhaba iyo gobolka City galbeedka City ee sida gardarrada ah aan garna loo maaragtay loogu fariisanaynin loogu daray nimanka walaalaha ayaga ee muslimiinta ee nala degan waxaanu leenahay sida ugu habboon ee dadkaasi nabadgelyo iyo ammaan ku helayaan ha loogu dadaalo hana loogu soo celiyo waana ka baxay jazakumullahu khayr assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka anoo hadalkii ku soo noqday oo sii wato waxaan doonayay xoogaa inaan halkan ka hadlo walaalkeen Cusmaan Mire oo anfarta dowladda federaalka Ethiopia intay qabatay anfarta si gardarra ay ugu wareejisay oo ilaa iminka jeelalka anfarta ku jiro waxaan u soo jeedinaynaa arrintaas si degdeg ah in loo sii daayo Cusmaan Mire ninkaasi humanitarian buu socday ambulance buu waday nin dagaal ku jiray maaha waa nin la iska qabsaday si gardarra loo haysta midda kale waxaan canaan u jeedinayaa mas'uuliyiinteeda annaka City gobolka ay noogu jirto dowladda deegaanka Soomaalida sida Aadan Faarax madaxweyne ku-xigeenka maayarka Diradhaba Ibrahim Cusmaan labaduba hawshooda ma qabsanayaan kama soo baxayaan dadkooda uma hadlayaan waxa loo baahan yahay inay dadkooda garab joogsadaan dhiciyo boobka raggii boobay commissioner booliiska wali ninkii meeshuu jooga inay ninkaana la xisaabtoomo shaqada laga qaado leeriyaheed in askar anana ku leenahay la qoro oo gobolkayaga oo noo shaqeeyo maaha kolba askar in jigjigana nooga keeno oo eeshaca dawanle shiniile askar gobolka u dhalay in la keeno maaha waxa u baahanay dadkayga in noo qoro marka waxa weeyaan ciiso meel walba joogtiin dadaala qayliya hadla soona baxa ninka gardarrada loo haystana waa inaad si fiican uga hadashiin safaaradaha human rights ka organizationada dhan warqad u qortiin wassalaamu calaykum wa anuu guuleed wala shay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan anaqoo dadkii u dhashay gobolka City gaar ahaan magaalada Diradhaba dhibaatadii waxaan maanta u cambaaraynaynaa dhibaatadii Diradhaba ka dhacday dadka boobka loo geystay guryahooda loo dhacay sida xun loo galay baan aad uga cambaaraynaynaa waxaan leenahay dhibaatada waa dhibaato dowladda federaalkii maaragtay inay dadkayga ay ka daysa ay ahayd oo ay maaragtay nabadgelyada ka shaqeyso magaalada Diradhaba waa magaalo la degan yahay nabadgelyada in la ilaaliyo ahayd laakiin waxaa si gaara loo beegsaday dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Diradhaba si fiican loo beegsaday hantidoodii oo la boobay guryahoodii waxay lahaayeen la jajabiyay taabaan aad u cambaaraynaynaa takala waxaan leenahay odayaasha Diradhaba ee la xidhay iyaguna qatarada lagu xidhay in la sii daayo baan ka hadlayaa oo si degdeg loo sii daayo iyo dhalinyarta yaryar ee barbaarta ee lagu xidhay magaalada Diradhaba in la sii daayo taa ka hadlaya waan ka xunnahay dhibaatada soo gaadhay dadka walaalahayaga ee ku nool magaalada Diradhaba aad baan uga xunnahay waxaan leenahay waa in la ilaaliyo nabadgelyada dadka meesha degan ee Ilaahay u dhigay takala waxaan ka hadlayaa galbeedka City dhibaatada loo geystay ee dadka badan ku dhintay Ilaahay u naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacana Allah dhayo Allah caafimaad degdeg ah siiyo yaa leenahay intuu ka dhintay ehelkii iyo qaraabadii dadka ka baxeen samri iimaan Allah ka siiyo dhamaantiinba meesha oo loogu daray xaq darro dad aan lahayn loogu daray dad kale la hoos geeyay oo isku afhayn isku dadaan hayn oo la hoos geeyay waxaan leenahay dowladda federaalka oo in arrintaasi degdeg ah ay u eegto uguna soo celiso deegaankeygii ay ka tirsanaayeen dadku ay ka tirsanaayeen waxaan arrinta maaragtay dhammaantood aan gaarsiinayaa dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka Soomaalida intaba waa maasantiin wa salaamantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
marka hore waxaan horta tacsitiin ayaa lagu diraynaa dadkii ku dhibaatooday ee ku dhintay gobolka galbeedka city sida xaqdarrada loo laayay ee reerahoodii aqaladoodii laga gubay ee carruurtoodii iyo dumarkoodii iyo waayeelkoodiiba la gumaaday intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha naxariisto inta dhaawaca ilaahay subxaanahu watacaala yani caafimaad degdeg ha siiyo inta ku barakacdayna ilaahay waxaan uga baryaynaa in hadda si xasiloonida dhulkoodii ugu soo celiyo taatu lamidana waxaan u diraynaa magaalada Diradhabe xasuuqa ka dhacay miidhada ka dhacday dulmiga ka dhacay gardarro garab og ah ee loo geystay dadka halkaas ku nool iyadoo ma garanaysaa meeshii laga filayay ma garanaysaa dowladda dhexe inay dadkaas difaacdo oo dadka meesha ku nool ay difaacdo ay dadkii ma garanaysaa gumaadaya u soo raaceen ay rasaas la dhaceen iyagoo dhaawaca ma garanaysaa xabsiyada la geeyay aad iyo aad baan horta taa u cambaaraynayna oo cambaarayn baan dusha ka saaraynaa dowladda federaalka dowladda dhexe oo ma garanaysaa meeshii laga filayay iyadoo aan kasoo bixin waxay u egtahay sheekada meesha ka socotaay sheeko ma garanaysaa well organizer oo si fiican loo soo habeeyey oo gawso waraabe guda ka xiriirsan baa la yidhi oo laisla wada og yahay la rabo dadka soomaalida ee dhulkaas ku nool hadha in jiridda loo ma garanaysaa loo rujiyo sababtoo ah ma garanaysaa waxa weeyaan ma garanaysaa booliiskii dhexe hortooda ayaa dadkii halkaa lagu gumaadayaa iyaga naftoodii baa guryaasha u dhacayo luutin oo ma garanaysaa boob iyo dhac iyo boob u geysanaya taasna waan cambaaraynaynaa waxaan yacni kala garan laanahay meeshan hadha inaan dal joogno ma garanaysaa xeer iyo lowyaan oorar leh iyo inaan hadha kayn ku noolahay labadaba ma kala garanayno marka waxa aan leenahay annagu aan leenahay dowladda federaalka aan leenahay oo had iyo jeer ku celcelinaynaa inay noqoto dowlad dadka aabbo wada inay adeer u noqoto inay aabbo u noqoto maaha dadkani waa dad wada Ethiopian haddaan nahay Soomaali annagu dhulkan waa Ilaahay baana dhigay de meelaan ugu soconaa iska yar moogtaa waxa kale oo xaq darro ah waxa kale oo ma garanaysaa crime in hadda dad intay nagu soo duulaan dadka Soomaalida ay leeyihiin dareere qaxooti baa tiina dadka hadda shaati maadeen oo dowladdu ay daawanayso ma garanaysaa iyagu saala leeyahay waa wax aad looga xumaado weeyaan waana crime against humanity moogtaa waxaan waxa weeyaan waxa loogu yeero ethnic cleansing leedahay waa dad hadda shicib lama garanaysaa loo jiridaha loo saarayo weeyaan aad iyo aad baan uga xunnahay taas aadna waan u cambaaranaynaa waxaan dowladda ka codsanay si degdeg ah inay dad dhexaada keento askar dhexaada oo dadkan hadda ma garanaysaa nabadda sugan nabaddu aad bay u macaantay cid walba ma garanaysaa way ku caanamaashaa haddii nabad la waayo Ethiopia ma jirayso ma garanaysaa waxaan la wadaay ha u maleynaa inay Soomaali ku ekaanayso meel walba ku fidi doontaa Ethiopia halis baad anaga Ethiopia wala la jeclaan naga haysa marka waxaan leenahay dowladda dhexe waxay si degdeg ah ma garanaysaa arrintaas ay uga soo baxdaa taasi waa taa weyn talabaad ma garanaysaa waxaan aad iyo aad u cambaaraynayna ma garanaysaa iyaga naftooda ma garanaysaa Somali state oo ayaguna ma garanaysaa hawlihii loo soo aan ka soo bixin waxaan arkaynaa ma garanaysaa nin ma garanaysaa dagaal lagu qabtay oo dhul gubaayay oo la soo qabto dadkii soo qabtay dariiqii ma garanaysaa de wanaagsanaa la mariyay intay maranay soo qaadeen oo autoritayaasha u dhiibeen baa meel walba la marinayaa ilaa madaxweynihii baa lagu sawiray dadkii ma garanaysaa xaq darrada lagu xirxiray iyagoo dhaawacan la xirxiray oo guryaashooda intoo loogu yimiday la laayay oo iyagoo dhaawacan baa xabsiba la geeyey cid ka daba hadashay male maxaa loo xiray male waxa kaloo ka sii daray nin ambulance buday oo dadkii u gurmaday oo dagaal aan ku jirin oo gurmad ah oo dadkii ma garanaysaa ambulance meel walba loo baneeyaa lama xiray lagala soo dhaadhacay meelaa la meel la geeyay hadda ma garanayno ma garanaysaa wax loo xiray xitaa ma garanayno kama hadlayaan ma garanaysaa walaa madaxweyne ku-xigeen walaa authority oo dhan cid ka hadlaysa ma arkayno marka waxaan leenahay ma garanaysaa shame on you guys ma garanaysaa hawsha la niicigmaday waxay ahayd ummadda inaad difaacdaan xumaanta iyo dhibaatada iyo xaqdarrada lagu hayo xasuuqa lagu hayo inaad ka difaacdaan ood ka hadashaan been kama hadlaysaan waa daawanaysaan aad iyo aad baan uga xunnahay taana waxaan si degdeg ah inaga codsanaynaa dadkaas xirxiran ee Diradhabe lagu xiray ee barkow dhaawacan yahay ee caruur leh ee dumar leh ee waayeel leh in si degdeg ah loo sii daayo ilaa maantada aan hadlaynaa dadkii la xirxirayaa weli mogtahay waxa loo xirayana ma garanayno dadka ma garanaysaa iyagoo loo yimid oo laga gardaran yahay oo la xasuuqay ba haddana loogu darayaa ma garanaysaa in ma garanaysaa xadhig loogu darayaa iyagoo dhaawacan weliba aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana ka dalbanaynaa in hadda si degdeg dadkaas loo sii daayo intaa waxaan ku darayaa ma aragtay waxaa jira rag kale oo ma garanaysaa anaga naga dhashay oo ma garanaysaa cadowga la shaqaysanayo dadkii hadda ma garanaysaa iyagoo gacan yaro oo dadkii kadeeday baa jira iyaguna mogtahay
وميل والبا ما قرنيسا ويغو ugu horeyna dadka soo dhibay kuwana waxaan leenahay war sidoo abwaan hore yiri iyaan idin leenahay walaalahayo midigtaadu yeen noqon hada magli dila walaalkii midigtaadu yeen noqon mid walaalkeed muruq weyn mirjinkaagu yuu noqon magli dila walaalkii magacaagu yuu noqon mid xumaan ka maraka sida macawisaha qaar nina maalin yuu xidhan wax makhluuqa kala dilay ma garanaysaa taas ha u filan waxaad maalinta dhamiseen bijin qaada ha u dhiman hana talin ma garanaysaa masiibiyo wax makhluuqa kala dila magacaagu yuu noqon mid xumaan ka makaca maskaxdaadu yuu noqon maqal lagu leeyahay ma garanaysaa yaa 10 miftaax iyo lagu furan masaabiir war hooy ma garanaysaa magac xumaa dadka ha kaga tagin taariikhdana meel madow ha ka galin ummadaada heedha wali waqti baad haysataa ma garanaysaa xaqa u soo noqo warnaasad assalaamu calaykum waxa kaloon ma garanaysaa marna la ilaawin dhibaatada ballaaran ee ay gobolka gabiisa ka jirta sida baabile ka jirta sida mooyaale ka jirta xasuuqa ka dhacaya every day ma garanaysaa dadku ay ku soo toosayaan dagaal iyo rasaas ay ku soo toosayaan xaqiiqadii wax aad looga xumaado weeyaan waxaan ka codsanaynaa Somali State iyo federaalka intaba ma garanaysaa sheekooyinkan in la soo afjaro haddii la soo afjari waayo sheekadaas meel walba oo Ethiopia ay ku filaysaa way ku fidi doontaa Ethiopia ma garanaysaa waxay noqonaysaa meel dagaal bay noqonaysaa anagana Ethiopia jeclaan naga haysa ummadana in la badbaadiyo oo ma garanaysaa laga badbaadiyo weeyaan waan maasanta السلام عليكم أما فانا رمتين دورات وبدا برايم مينستر إثيوبيا يوند دقي سافا خيتي ورخين يا خا سومالي إثيوبيا خيزة جراتو أكا جيو أجسني هوري ساني رافودتني أكا تين كمي جراني دريرا خيزة تيما تربان دبرخانا نميت تودي من ساني سينني مشي ساني فودتني أكنا أجسن وانخانا نوتي هذا بنجنا يو أستراليا تاني أما هدورا نجرنا هوري ساني رافودتني جوليا كنا أجسني منتي ساني رافودت كابتني جران وانا كانوا قولون غاري ميتي فدرال إثيوبيان دوبتشا برايم مينستر يوند دقي سي راكامني جنا I condemn all this now የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር እና የኢትዮጵያ ህዝብ ይዛ የሚኖሩት ፌደራል ገቨርንመንት እና የሶማሌ ክልል ተባባሪዎች ምላችሁ የባቢሌ ሞያሌ ድሬዳዋ የሚደረገው ነገር ሶማሌዎቹ ላይ የሚደረገው ነገር ሲቲ የሚደረገው ነገር ይቁም ከዛሬ በኋላ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ደስ አይለንም የኛ ህዝብ እዛ ተገድሎ ሁሉ ነገር ተወስድባቸው ነዋሪ ናቸው ኢትዮጵያ ነዋሪ ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ማቆም አለባቸው እና አሁን ደግሞ በእንግሊዝኛ ትንሽ እናገራለሁ ሶሪ ብዙ ስለማልችል I condemn everything that happened to our people in Dredawa, Moyale and Nagele City. I condemn totally. It's atrocity that occurred last week and this has to stop. I'm appealing to our government to federal government of Ethiopia, this atrocities has to stop, and I appreciate it. Thank you so much. That's all I can say. بسم الله الرحمن الرحيم. مد waxaan u leeyahay dadka kuna Soomaalida ee ku nool dhulka city amba ha noqoto amba state ka noqoto laakiin waxaan dirdaba dadka ku nool waxaan inisi 40 iyo 20 laakiin kuma amal fashiin 40 inisiiyay waa inuu booliska ku jirtiin waa inuu militariga ku jirtiin 40 qaybta inisiiyay waa inuu ka qaadatiin shaqaalo waa inuu 40 noqdo xabashidan meesha timid ee doonaysa inay dhukiina niga dareeriso ee Soomaaliya qoshasha xaqiiqii ma Gondar ha ku noqdaan dareeriya Gojam iyo Gondar iyo meesha ka yimaadeen halkan ha ku noqdaan uma jeedno xabashi dhukan waxa le Soomaali baale xabashiyow hadda doontii hadda diididba Soomaali baale nageem zahreem xabashi ku dar يا سومالي أجرنا يا سومالي أجرنا دريدوا هاي السلاسل بتفلق هي تاريخ تملس إيه تاريخ من يبال بردريدوا مامباب كشال هي لابراري هنا إيه أوكي دريدوا يا سومالي أجرنا أمارا أيضا أمارا لسرانو يمتاو لسرا سلامتاشو دسكالا لاشو تملسو We don't want you if you don't want us. ዛሬ መጣችሁ ደግሞ አገራችን ሰባብራሉ ሴቶቻችንን ቤቶቻችንን ሰባብራሉ
ህፃኖቹን በድንጋይ ተወረወራለች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ትናንትና እኛ ነው ደበቅናችሁ ኦሮሞ ሲያባራችሁ አታስታውሱም አስታውሱ እኛ ያደረግልናችሁ አታስታውሱ እና አስታውሱ እንላችኋለን ኦኬ don't forget ሶማሌ ድሬዳዋ የሶማሌ ከተማ ነች የአማራ አይደለችም ዛሬም ብትሆን ነገም ብትሆን የፈለገው ቢሆን የኛ አገር ነች የሶማሌው ደግሞ መጨረስ አትችሉም ልትጨርስ ከፈለጋችሁ ሶማሌ ለመጨረስ አትችሉም እንነግራችኋለን thank you بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحكي العلن مايو وحوي نكا هستماير كمقالة دردبة إيد وين بوصل جدينيا because نكا ونكا كمسؤولة مقالة وحكي دعية نكا وحوي كل كي وحن دعيين أتسابو جو سافرك أوكي وحوي نكا وإنه soon as possible وإنه بديلو نكا commission كا جتاتو iyo maaragtay waxa la shaqeeyo oo dhan bedelo weyn waxa la shaqeeyo oo meesha ka qaado waxa weyn waa wixii dadka magaalada oo dhan lagu xasuuqay ee maaragtay dadka oo dhan barakiciyay ee dadku ilaa shanilo baxsadeen kolka waa in la bedelo saddexna ku sheegay kolka nabadgelyo dadka ma la ilaaliyo kolka aan ka baxay bismillahir rahmanir rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان باق حقا ديرا مقدرينا ومدى صوماليات دردب الدقن حسوق اللغة يو إلا دباتين يو أي دولدنا داوانا يسو أي هبيرات وحت الله باعينا كقادين وحان نقعتنا دولد إيتوبيا فدرالكا إني سوفر قليسو إني ومدى أي كلاهكتو إنو اللغة يشرعيو وشقيو qaarkoodna inay aabbo u noqoto qaarkoodna inay adeer u noqoto ay kulbaaqalada kala soo baxaan ay siday doonaan ay u yeelaan ummadda haba yaraatee waan ka xunnahay waanu cambaaraanaynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Allo, Amin, allo, baqi kayel.